waxaan meesha u fadhinno ama aan ka hadlayno wax maqan maahan waa waxa dabadeenna yaalla oo halka yaalla qalabkan oo dawladda Puntland dhammaanteed gaar ahaan gobolka Mudug muddo dheer u sugayay inaan maanta halka iyagoo nabad qaba iyo annagoo nabad qaba aan isugu nimaanno waa guul xag Ilaahay ka sugnaatay mashaariicdan waa weyn oo hadda laga sheekeeyay kuwa hadda socda iyo kuwa imaan doonaba intaba dadaalka dadweynaha iyo dawladda oo iskaashaday ay ku hirgaleen inta qabsoontay inta dhimanna intaas bay ku hirgeli doonaan haddii Ilaahay waad ogtihiin mashaariicdaas bilowgeedii xukuumadihii naga horreeyey ayaan uga mahad celinaynaa oo waqti badan geliyey hadday ahaan lahayd aeroboortka haddii ahaan lahayd dekedda haddii ahaan lahayd waddada iyo kastamka intaba dawladnimadu waa qor isku dhiib qofka sharci baa lagu doortaa sharci buuna ku shaqeeyaa sharcigaana faraaya inuu danaha dadka ka shaqeeyo ma aha wax maskaxdiisa ku jira waa uu ku khasban yahay hadduusan u shaqaynayn xukuumaddaas dadkeedu waa ka tashanaya xukuumaddan hogaaminaya waxaa dhabnaga ah inaan bulshada u shaqayno mashaariicdii socotay iyo kuwa Ilaahay nala kulmiyay inaan annagu abuurnaba inaan ka shaqayno waxaa maanta ama gaare ama ku socda wafdi magaalada Addis Ababa wasiirkii ganacsiga iyo wasiir ku-xigeenkii maaliyadda oo ka soo hadlaya sidii dawladda Itoobiya iyo Puntland uga wada shaqayn lahaayeen kastamka dhinaceenna kale wasiirka maaliyadda ayaa halka maraya oo Ilaahay idankiis dhowr beri ka bacdi u gudbi doona halkaas si dhinaceenna ay uga hirgasho inta naga dhiman dhinacyadeenna muddaan sugaynay labada daraf laakiin waxaan goosannay wada hadalkiina inaan wadno shaqadiina inaan bilowno safarkeenna Ilaahay idankiis hadduu hirgalo China waxyaabaha ugu waaweyn oo mashaariicdaas ay qaybta ugu weyn Mudug ka leedahay oo airportka ayaa ka mid ah dekedda dadkii hawsha waday baa ka sheekeeyey waxa lagu helay awal waxa ay oran jireen reer gaalkacyoodku waa isku tashanayna laakiin kaligiin iskuma tashan kartaan naftiinna inaad beer u sheegtaan ma aha awalna waxa wax qabta waa dawladnimo haddana dawladnimo wax qabanaysa marka kuwa aan dawladnimada rabin horta iska qabta dad aan dawladnimo rabin baa jira dawlad la'aan mashaariicda aad ka sheekaynaysaan lama qaban karo Puntland iyo Security Council reer Mudug baa isu keenay waa adag tahay waa Security Councilka dawladuhu la xiriira Puntlandna waa state marka state iyo Security Council waxa isu keenay waa idinka horta idinkiina xagal daacin badan baan laga sheegay runta marka loo hadlo maanta reer Mudug baa noqonayna annagu wax qarsan maayo awal xoogaar baa reeban jiray laakiin mar hadduu garaadka yiri marka waxba la kala qarsan maayo kulligeen waxaa la rabaa dawladnimada inaan ku faraadeegno taasaan wax ku noqonaynaa taasaan ku jiraynaa taasaan horumarka aan tiigsanayno ku gaari karnaa dawladnimo la'aan ninna meel kuma gaari karo waad ogtihiin maalin dawlad la'aana dhibka ay leedahay Puntland araggeedu wuxuu uga duwan yahay in badan oo geyga Soomaaliya ah waa maamulka iyo kala dambeynta ee dhisteen maamulkeenaas oo isugu jira laba qaybood qayb dhaqan iyo qayb dawladeed oo iswata ayaa horumar lagu gaaraa hadday labadaasi kala dhaqaaqaan burbur horraantiis weey marka waxaan rajaynayaa in la wada jiro midnimada laga shaqeeyo danta caamka laga shaqeeyo macnaheedu maaha inaan la iskhilaafayn inaan aragtida lagu kala duwanaanayn inaan la ismucaaradayn mucaaradnimada waa ogolnahay laakiin waxaa la rabaa mucaaradnimo waddada dawladnimada leh laakiin wararka la sheegayo oo wadda dawlad dumis ah mucaarad maaha kaas mucaaradnimadu waa toosin wixii naga khaldan inaad noo sheegtaan diyaar baa u nahay wixii aan garan weyna aad noo sheegtaan inaan qaadanaan diyaar u nahay wixii intaa ka baxsan haddee dadku ha qabtaan ma dhaheenee dawladdaas ka qabanaysa wixii intaa ka baxsan dawladdu waxaa loo doortay oo sharciga lagu doortay oo dadku ku doorteen inay danahooda ka shaqayso wey amnigooda ka shaqayso kala dambaynta ka shaqayso waxa khaldan ay saxdo halka ma aha meeshii aan hawlaha ku furfuri lahaa laakiin fursaddan aan uga faa'iidaysanayaa in ay dadku
dawladnimada ay la shaqeeyaan waxay la shaqeynayaan aniga maaha wasiirada maaha waa dawladnimada cidda hadda markaa joogta bay la shaqeynayaan dawladnimadan inaan ku far adeegno haddee mudug dawladda iyadaa dhistay waan ogahay waa dumin kartaa hadday rabto marka dawladda ilaaliya oo wixii ka khaldan u sheega oo garab istaaga waxaan aad iyo aad runtii aan halka ula yaabay adduunku waa isbeddelayaaye reer mudugii qayb baa baqdaa la yidhi baqdinkuma ogaan jirin marka baqdinta laga sheegaayo hadalkaas beesha ma galo waa lagu ceebaynaya baan u malaynayaaye baqdinta ha la iska daayo dalkan dadkiisa iska leh cidda ma u imaanaysa ma jirayso cid aan dadkiisa haynoo xukumaysana ma jirto runtaa inii sheegayaa cid kastoo isku dayda ama jilib ha joogta ama jabaaba ha joogtee reer puntland iyagaas xukumaya nin meel kala jira ma xukumi doono ilaahay idinkiisa idinkana waxaan laga rabaa inaad arrintaas u dhignugulaataan bidaar sibiq bay kugu gashaa baa la yidhaahdee waxaan jirin iyo intiina la tustuso inaan meelaha laga soo madmadow aan jirin intii farta lagu fiiqo inaan niila soo dhuuman baa iyadana ka digayaa odayaasha iyo maamulkana waa wada hadli doonnaa waxa la tabanaayana waa sixi doonnaa waxa khaldanna waan hagaajin doonnaa cidda dawladda mas-uulka u ah ee shaqadeeda gudan weyday iyadana waa la xisaabtamaynaa waxaa runtii eedda dhinaceenna aan ku leennahay waxaa ka mida dawladda dadka halka mas-uulka u ahaa inay kaalinteeda gabto haddii ay caddaato haddee sanad meesha iska joogaya maahan waxbaa laga qabanaya marka ballanteennu waxa weeye dalkan wadajir aan ku dhisanno annagu waxaan inii ballan qaadaynaa oo inii caddaynaynaa inaan garabkiinna taagana weliba mudug si gaaray baan u shinsanaynaa maxaa yeelay waa meesha puntland difaaca u ah darafka u ah haddii horumar dhaqaale ay heshana shiddo badan oo hadda haysata inay ka degayso dhallinyaradeeda inay shaqo heshaan rabnaa noloshooda inay isbeddeshaan rabnaa amnigu wuu soo hagaagi markaas amni xabad laguma hagaajiyo amniga nolol baa lagu hagaajiyaa dadku waa inaan nolol loo abuuraa si ay nabadgelyada u wada ilaashadaan magaaladan dagaallo badan baa ka soo maray qax badan baa ka dhacay rafaad badan baa ka dhacay inkastoo dadku wuxuu iskala qabsado marka dambe caado ka dhigto laakiin waxaa weeye taasi bini'aadamnimaday ka soo horjeedaa qax iyo shiddo caado saxa maaha marka inta fidnada ka shaqaynaysa mar walba waa in gacanta la qabtaa annagoo wada jirna waan rajaynaynaa mudug ilaahay idankiisa inay noqoto meesha soomaali oo dhan ay kulmisa inay noqoto meesha mawqica ay ku taallaa abuuraaya dadkeedaa abuuraaya meel loo soo hirtay inay noqotaan rajaynaynaa mashaariicdan inay noqdaan mashaariicda arrintaas xaqiijiyaan rajaynayna annagana waxaan ballan qaadaynaa inaan si hagar la'aana meeshay gashaba aan ugu dabagelayn ama security council ha gasho ama meel kale ha gasho dhinaca wax nagala gudboon diyaar inaan u ahan inii caddaynaynaa waad mahadsantihiin waa qorrax waxaan uga mahad celinayaa guddigii hawshaan runtii isu xilqaamay oo runtii dhabarka u ritay laga soo bilaabo markii ay fikirku ahaa ilaa iyo maanta hawshaas wada runtii ammaan bay mudan yihiin iyo garab istaag waxaan rajaynayaa hantida iyo waxa halka maraya iyo dadaalka halka socda waa hanti ummadeed xooggeedu dhulkii dadka iyo dawladdu lahayd baa mashruucan saldhig u ah inta dhiman oo ilaahay aan rajaynayno inay markaan aragno inaan wax qabsannana waxaan rajo weyn ka qabaa in mid kaalmo ah iyo dad investors oo naga awood badan inay soo geli doonaan si mashruuca u xaqiiqoobo waxaana laga rabaa hadda waa amaamudkii iyo inaan ummadda tusno inay dhab naga tahay maantana tanaa daliil u ah inay dadka dhab ka tahay insha allah dad badan oo riyo moodaya maantay xaqiiqo tahay waxaan ugu baaqaynaa cid kastoo danaynaysa ama soomaali ha ahaato ama ajnebi ha ahaato oo mashruucan danaynaysa iyadana inay ku soo dhowaato oo ay qayb ka qaadato sidai u xaqiijin lahayd mashaariicdaas horumarineed mashruuca horumarineed laba kale leh meeshii hagaagsanaato ummaddoo dhan baa isugu timaadda